qaxoogan ayaa ka bilowday xaafadaha Siigaale iyo xaafadaha ku teegsan wadada dabka xaafadaha Siigaale ayaa waxaa ka qaxay dadka shacabka ah ee xaafadahaasi degan kadib markii ay soo dul dageen ciidamada mucaaradka oo dhufeysyo halkaasi ka samaystay dadka danyarta ayaa iskaga qulqulaya xaafadaha Siigaale iyo dabka waxaana gabi ahaan xiran ganacsiga wadada Maka al-Mukarrama qaar kamid ah shacabkii barakacayay ayaa la hadlay telefishinka Somali Cable iyaga oo ka warbixiyay dhibaatada haysata annaga waa qaxeena ilmahayga la socdaa waa xaafadeena ka barakacayna labada dhinac dagaalada waxaan rabnaa inay naga dhaafaan annaga maatooyinaan nahay dagaalna ma galno labada dhinac waxa ugu baaqayna inay naga dhaafaan colaada halka aad ka soo barakacdeen wax degmada Howlwadaag ما دتك حافظة دم واحد واحد جوا ما دتك الماضي بحثين دتك بدو يقحين لك أنا كما قحين وميلا عندنا ما هي السنة بانك وماشى باورك بجاجك على بجاجك ما أنت إلا بكارة وجيني $0 ميلا عاد دت مساكين أنا هاي قح إيه بحسن النوم فينا ما تذكر عنك عسنين قحنا جوجيان ما قحي كرنا أنا والله جيبي مقدش هذا يوقع سنين وحنا إلى شعبك على طرق دتك على طرق أنا كوك وحنا ماتي عرور لي حاسلي meel aan qaxnay meel aan ka qaxnay ma joogno marka waxaan dhiileen labada dhinac inay nabad noo fiiriyaan anaga buug naxariisna loo fiiriyaan jecelnahay waxaan joognaa Siigaale xaafadda leeyahay ayaan joognaa dadka ayaa qaxaya oo xaafadaha Soomaaliya meel buu qaxaya anaguna dad waxaan nahay baawri aan nahay dadka anagoo ayagoo dhaawac ma qadnay dadka ayagoo nool oo xay oo maartay diyaal ku reema maartay qof walba asagoo wanaagsan ayaan qaadnaa meesha raan baageena marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegnaa iyo dad madaxda sharafta leh ee madaxweynaha iyo dadka mucaaradka waxaan leenahay dadkii waxa lagu jiraa qaxba lagu jiraa bil Ramadaan weeye dadka loo naxariisto madaxweyne farmaajo horta koow waxaan leeyahay in uu hadduu shaqay way meesha ka soo baxo ay dadkii ka hooseeyay baasha ku rogeen nimankaana waxaa leeyahay adigoo dawladda isna meesha taga dadkana qaxa laga daayo labadaas qolob intaas aan ugu baaqaya dadka Muqdishona nabadda la ilaalishaan leeyahay dawladda Soomaaliyeed aa dhisan dadka Soomaaliyeed shalay maan darad nabaday ahaayeen waxaan ogahay haddii hadda maanta madaxweyne farmaajo uu baxo in uu dagaalka inaanan heshiihayn oo madaxweynuhu hadduu ka tago hadeertaan aanan heshiihayn oo si dagaalamaysaan oo hogaamiye ku-xigeenka sidii camal u dagaalamaysaan oo dagaalka joojiin oo hogaamiye ku-xigeenkii si camal isku qabsanaysaan oo madaxweynaha hadda dadka aan isdeynayn waxaan ku baaqi lahaa inay mucaaradka dagaalka joojiyaan ciidamada dawladda iyo kuwa mucaaradka ayaa isku hor fadhiya xaafadaha Siigaale iyo dabka waxaana kacsan xaaladaha goobahaasi Sucaad Cabdicasiis Daahir telefishinka Somali Cable Muqdisho Muqdisho labadii maalmood ee la soo dhaafay waxay gashay deganaan la'aan aan caga badan ku taagnayn waxay dadka reer Muqdisho saadaalsanayaan dagaalo ka dhex qarxa mucaaradka iyo dawladda balse labada ciidan ee dagaalamaya waa ciidamo dawladeed oo difaaca dalka iyo dadkaba u dhaartay dadkuna aysan ka filayn in ay sababtooda u qaxaan maadaama uu ciidan ku yahay kuwa markasto qaranka u soo hara siyaasiyiinta xilka isku hayana uu xukunkooda yahay meerto Muqdisho maanta waxaa ka jirta hubanti la'aan dhinaca nabadgelyada ah oo dadku waa dareen ku joog xaafadaha qaar ee magaalada waa ay haawanayaan oo dadka waa ay ka barakaceen oo waxa ay u jihaysteen koonfurta magaalada arintan ayaa ka dhalatay kadib markii 12ka bishan golaha shacabka ay muddo kordhin 2 sanadood u sameeyeen hay'adaha dawladda taasoo keentay in banaanbaxyo looga soo horjeedo muddo kordhinta loo sameeyay dawladda oo maalin ka hor ilaa iyo xalay fiidkii hore ka dhacay deegaano ka tirsan Muqdisho xilli xukuumadda duubabka dhaqanka magaalada culimaa diinka iyo ururada bulshada rayidka ay wadaan waan lagu doonayo in xaaladda lagu qaboojiyo inay bulshada rayidka igala shaqeyso nabadda waana dareemayaa walaaca aad muujiseen dhammaan qof kasta oo Soomaali ahna wuu qabaa walaacaas wixii dhacay xaqiiqdii ka ra'iisul wasaare ahaan waa ka xumahay wixii shalay iyo xalay ka dhacay caasimadda waxaana mar labaad ku baaqayaa xabad joojin meelaha ugu badan ee saaka ay dadka ka barakacayaan ayaa ah xaafadda Siigaale oo ciidamada mucaaradka oo aag cusub ay ka sameysteen qaar kamid ah dadkii deganaa xaafadda Siigaale agagaarka Mawlaca Macalin Nuur iyo xaafado kale oo ku teedsan kana tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa aroornimadii hore ee saaka ilaa iyo iminka ka barakacaya sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday dadka barakacaya
ayaa la arkayay hooyooyin iyo caruur kor u sita alaabo yar oo ay ka qaateen guryahoodii ay deganaayeen iyagoona aadaya xaafado kale oo ka tirsan gobolka Banaadir. dagaal qof eedan ugu jirto malaha wadanka dagaal waa ka daalay 30 sano dagaal lagu jiray dagaal wiil ah ku dhintaan wiil kuma dhasho anaga dhalinyarada waxaan nahay deegaankan walaalow anaga dagaal dan ugu ma jirto labada dhinacba waxaan rajaynaynaa in wanaag laga shaqeeyo in nabadda marka hadda se wax dagaal ma socdo oo dadka alle ayay ka magan galayaan balse dadka waa dareen ku joog xaaladan cabsida ah ee magaalada ka jirta ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen goobaha ganacsiga iyo xarumaha waxbarashada. malaayiinta qof ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa xilligan oo kale wixii ka dambeeyay 10ka bisha barakeysan ee Ramadaan u diyaar garoobi jiray iibsashada dharka caruurta ciida balse farxadaas waxa haatan bedeshay cabsi dagaal waxayna dadka tala ku noolka u jeedinayaan dhinacyada ishaya in ay sidan isu dhaamaan. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan.